qadar waa macalin haya macalin xagee caawa maanta maraynaa maanta waxaan ku dhex jirnaa iskuulkii Nuur Shiraac Secondary Luuq ayaan maraynaa dhexdiisa qaybahan aad arkayso waa qaybihii hore ardayda fasalada u ahaan jiray haddana waad arkaysaan burburku ku dhacay yaa weli yaa ka muuqdo waxa la yiraahdo fasalo oo ma diyaarsano arday hadda waxay ku bartaan hadda waxaan gelaynaa qol ka mid ah qaybo ka mid ah gelaynaa waad arkaysaa burburka iyo siday u burbursan yihiin iyo siday yihiin marka waa waxyaalaha rabnaa haddaana guddiga howlwareegka ka ahaa iskuulka dugsiga Nuur Shiraac haddana shaqaynaya qaybo ka mid ah la dayactiray in qaybahan gacan laga geysto oo fasaladan dib dhismadoodii iyo dayactirkoodii gacan baan codsanaynaa insha allahu tacaala iskuulkan dad badan ka soo baxay oo maxaa leedahay dadkii wax soo bartay qolkan weliba ardaydii meeshaan khayr allaha siiyo dad badan baa maalintii koowaad oo sanadkii 2022 ahayd halkaan markii dib loo aasaasahayey oo dib aboorka looga jafahayey dadka nagu soo booqday oo gacanta ka geystay waxaa ka mid ahaa qadar xaji saleemaan ilaahay ma khayr allah siiyo allah barakeeyo ninkaas jeebkiisa lacag buu ka bixiyey qardadii dhulkaan oo dhan hawd buu iska ahaa qardadii ayuu macnaha ka qayb qaatay oo dhulkaan lacagtiisa qayb ka mid ah ayaa qardadii yaa loo qayb qaatay yaa maanta insha allahu tacaala ay ka qayb qaatay waana aad iyo aad xamaasad ka muuqato oo macnaha wuxuu ahaa marka iyada in iskuulkan gacan laga geysto gaar ahaan dadkii ardayda ahaa oo halkaan macnaha ka baxay oo maanta dacalada adduunka ku nool waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala inaad gacan mugla ka geystaan maxaa yeelay meeshii aad barsamaadka aad adinka jahli uga soo baxdeen maanta arday baahidii oo kale haysa ayaa joogto waay marka allah in barakeeyo insha allah iyo cid kastoo Soomaaliyeed oo ka gacan geysanayso iyo qof kastoo muslim ama qof kastoo oo bani'aadamada ka shaqeeya insha allahu tacaala waan ugu baaqaynaa qolkii kalena waa kuwan hadda halaal adeegso waa qolkii wax ku baran jirteen boorkan saas u go'an yahay kalaaskan ma aqaan kalaasku ahaa laakiin qadaro waxay Saleemaan aad u yaqaano qadarow dadka u sharax kalaaskan waa taqaanaa iskuulka ku soo barateen waaye saas u burbursan yahay waa fasalka gudihiisii qaarkood qashinka iyo qashishka yaala markaad arko ayaabaysaa daaqadihii waqtiga macalinka wuxuu codsanayaa in galaasyadan la soo habeeyo oo laga dhigo galaasyo shaqeynaya si ardada galaas hadda 1 dhigato 2 iyo 3 meel ay ku dhigtaan la rabaa marka baahidii hore uu sheegay baahi kala soo baxday oo ah ceelkiina in laga qayb qaato oo iskuulku noqdo meel ceel leh gabdho badan baa dhigto in gabdhahaasna ay noqdaan gabdho sanitationkooda iyo nadaafadooda ay fiican tahay iskuulka wakaasa qaybta waa qaybtii ugu darneed oo burburka uu soo gaaray qolkan haddaad aragtaan qolkan waxa is leedahay waxba kama jiraan oo aad u burbursan yahay waana qolkii ugu quruxda badnaa ee dadka ay wax ku baran jireen galaasyadii A iyo B iyo C kala ahaayeen marka qadaro xaji Saleemaan iyo dhammaan inta ka qayb qaadatay khayr allah siiyo algarooba iska saaran beeri marka xarajeynina in مسؤولية وكواس واحد دقش وقولك يا دقش مسؤول عمله سا مركز دمان دربي وكا فينس ماله دبال ماله والسكس سجل كرا هذا دمر بس كجير سوى مش سكول لواي سكول دمر نسوق لما هين قشر كي بلايد اللي قصوا الحياة مركز إن شاء الله حرير وعن وهي أو طلعت صالان وسكول لابننا مع الآخر كلام كهذا إن شاء الله تعالى وحنجينا ضدكاس أيك هدانا بالشدي أو ياشي دقمة اللوق قارهان سكول كنور شرعة سكول كادو وناشق يا فصلك يا فصلك كم ده أي شقي لكن أنت سبنيت باهدا كم بربركي سيد دربي سيدي مارتا عالكي سيدي المهي بوقتي أكثر عين يا حق ماشي قررت وأودي أسيه لكن ملأ أخذ ملأ بوقت ملأ تبغى يكون كتان مجلس وعدد كسواله وحين كلا المها باهدا يكجسته معناها حق بسك ملك بابورك المهي بسكها أو مالها أنا يا تم حكوي ماني هذا واحد كوي مادين بتشاج أرضنا ثاني كوي ماذا بتشاج كوي ماذا قارنا لوك ما بأودان قارنا ما بأودان قاركون مركا وحين كلا عصرنا إلا هلا المها السنة كان صوص عضو وحين فيها أرضي آدو بدن بمجال سوق الجبيسو أسكولات كهوسة ده حكى سوق الجبيسو إلى أن أهلنا بس أتكلم كقادات إلهي بأجر بدن ينصر هيو وحين الله يباركيه وننسى دعائنا إن شاء الله تعالى عدك دير وحرجينا إن شاء الله تعالى دولتان وتكسر جواب دونتان وأنا ما سنتي تتورك ونصاب غلي آد يا العبساق آد بان أقوم هاد علينا بقشيسة
iyo imaashadiisa oo naga soo qayb galay haddaana odayaashii iyo guddigii howlwadeenka dugsiga Nuur Sharax ka mid ahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.